marka insha Allah taala muxaadarada aan sheegaynay aan u ballansanay baa hadda diyaar u nahay insha Allah sheekh inuu soo jeediyo ciwaankeedu waa dardaaran insha Allah dardaaran guud insha Allah wixii ilaahay waafajiyo inoo dardaaran insha Allah jazaakum Allah khayran marka aan laga faa'iidaysto salaamu calaykum tafadhal إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد إلى حق الله سبحانه وتعالى خير منكم اليوم دين تانية الدنيا لأننا ونحف اليوم إخواني جميعا إلى سبحانه وتعالى كتاب كيساس يا نبي أن السنة صلى الله عليه وآله وسلم وحاولنا التلوين هي دردارا دنيا دينيا نوشينا هي دينتنا يا آخرة وكل منا يوكوبا يوتابايا يا كبوحة فإن مضنت يقفك مسلمك دنيا نوشي سيقاب قوم وران لحانا inuu talooyinka wax ku dhiso diintiisa iyo aakhiradiisana oo daarta labaad ee ku wada soconno ahna dardaaranada iyo talooyinka qur-aanka iyo sunnada iyana uu ku dhiso waxaa hubaal oo xaqiiqo ah haddii taladaas qur-aanka iyo sunnada ayna siinayaan aynu qaadano dunidii noloshana wax wanaagsan baynu ka gaadhi دين يا آخرنا وحونا أقسم بينه كهري إن شاء الله تعالى من قيوك من وحينا كجاره إن شاء الله تعالى صلاة العشاء كور رئيسة فيا وحكتر الماما يا إن شاء الله تعالى الله يبارك فيه وحكمية تلوينك قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رب سبحانه وتعالى هل كان المسلمين تقوي علي إلى إزالي الصحيقاتان وحو كروش وح صحيح الواقعاته وجدك الله أمره لورا بحصده ووحقال كل نقضة وحاوين عبسينا لا يعبسيني سهل يا واحد زاد يا صحيح لغدك توي آيات ما عليك لا قاعدين زادك يا صحيح أدوك يا زادك يا صحيح آخرة لبضوا هو يسوق لي أدوك واحد صحيح لغدك تو أو كيد كون نقطة واحد هميلة هذيك سنة يسي أدوك أنا أدوك على ما يساتو عبسيد إلهي وأبو في عنه آخرة الدين تادنا يدا وفي عنه الله سبحانه وتعالى القرآن كيسية سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرية دوب عبسيد إلهي الزادية الصحيحة وفي عنتهي وعلى وفا فاهيي الدنيا عبسيد إلهي ما لو قالا آخرنا يدا لو قالا الدنيا waxay nu raadinayno marka la isku soo ururiyo waa laba bini'aadamku wuxuu dunida ka raadinay laba kaliya waa bini'aadamku wuxuu dunida u baahan yahay baahidiisu waa laba kaliya waxyaabo uu hiigsanayo rabo inuu gaadho iyo waxyaabo uu ka baqayo inay ama haraagaan ama galaaftaan labadan way dunida waa wax rajaynaysiyo waxaad ka baqaysa labada kaliya way waxa dunida la rajeeyo
ama dunida dadku hiigsadaan waxa ugu badan waxaa la dhihi karaa 4 wey. intaa dunida aan ordayno ka diyaaradda raacaya, ka gaariga raacaya, ka tareenka saaran, ka ordaya, ka dhoofaya, ka qaxaya, waxa aan ku taamaynay bini aadamku ku taamo 4 baa ugu muhiimsan. 4tuna way sii kala sarreeyaan oo isku mid maaha. waxaa ugu koowaad waa dhaqaaliya hanti doon dadku. kan wax baranaya wuxuu leeyahay dhaqaalo samaysid, kan kursiga raadinaya waxaa u daba taala dhaqaalaha u lamaan, midkan ganacsiga ku jira, midka gawaarida caylinaya. tuliyalaan hadda halkan waxaad u timaadeen qaraabiya tolna maydan soo raadsan, tacliin iyo waxbarashana maydan soo doonanin, diin iyo cibaadana umaydan imanin. inta qaalibka ah waxaa u timaadeen hantiya dhaqaaladayda in xoola la sameeyo. waa halka ugu muhiimsan qofka bini aadamka. hadafka labaad ee bini aadamku ay aadka u haminayaan rag iyo haweenba guri iyo reer waay. aad guursatid, aad guri degtid, aad reer yeelatid, aad ilmo dhashid, aad reer dhaqdid. dhaqaalo samee kadib reer dhaqo, waxbaro kadib reer dhaqo. waxyaabahan dhaqaalaha iyo tacliinta iyo jagooyinka iyo hantina hel, reerna dhaq baa daba taal. marka intaa way ku taamayaan inuu reer yeesho, ilmo yeesho, caruur dhalo, caruur dhaqo. waa ku wada taamaynaa. waa waxa labaad ee dunida hiigsanaya. waxa saddexaad ee dadka tirada intaa ku xigta ay hiigsanayaan ee habeen iyo maalin ay u ordayaanna waa in intaa ka yar dadka oo waxbaro ah. qof kastana waa jecel yahay wax inuu barto, dan iyo duruus meesheeda ha joogtee. haddii maanta laga sheekeeyo waxbarashadiiyo iyo cid waxbaratay, waad jeclaan lahayd inaad waxbarato ama qofka waxbartay adigu noqoto. qof walba waad jeclaan lahaa, laakiin in badan dan iyo duruuf bay ku marmarsoonayaan oo duruuftaa diiday oo dantaa diiday oo dhaqaalo uma hayo, shilimaad baanan haynin, waxbaa lagu marmarsoonaya. in intaa ka tirayar xukun iyo jagay raadinayaan. nin madax raadiya, nin baarlamaan raadiya, nin wasiir raadiya, nin xogeyn raadiya, nin xisaabiye raadiya, ninba jago iyo kursi baa la daydayayaa. 4taasaa ugu muhiimsan. in kuraas doona, in tacliin doona, in dhaqaalo doona. daama dadka oo dhan wada dhaqaalo daydaya, dhalmo iyo ubad iyo reer, intaasaan daydayaynaa. su-aalaan idin weydiiye marka, adduunyada intaa la cararayo 4taa waxaan ahayn oo ka muhiimsan ma jiraan? 4taan baynu daydayaynaa. intaasaa halkeena keentay, intaasaa Yurub iyo galbeed iyo bari iyo Australia noo wada qaxisay, intaasoo kale locationada wiilasha laynaga leynayo. ayaboodka maanta marka kasoo degay qubuurtaan soo marno, allah baan soo aasnay, allah u naxariistay. hanti baa la raadinaya, intaa baa la raadinaya. markaa waxoogay soo shaqaysa waa laga yaabaa hadduu xukun madaxa kaaga jira, maadaama boosaska jagooyinku ay yar yihiin, dadkuna aada uga badan yahay, xoolihii waad ku khasiri, saaxiibka iyagay ku xiran tahay. dunida waxaa la raadiyay intaaba. intaas oo wanaagsan ilaahay cabsidii baa lagu helaa. intaba ilaahay cabsidii baa lagu helaa. waxaadna ka garanaysaa intaba ilaahay baa haya. ciddii isaga uu siiyo un baan ahayn. saas ugu rumaysay. cidaan allah ahayn baa intaa gacanta ku haysa. bal qur-aanka dhagayso. xukunka iyo jagooyinka ilaahay sooma dhihin qul illaahumma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaau wa tanzicu lmulka minman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa biyadika alkhayru innaka calaa kulli shayin qadiir. ilaahay oo boqortinimada iyo xukun iyo jagaada iskale. qofkaad rabtana waad saartaa, qofkaad rabtana waad siibtaa, qofkaad rabtana waad sharaftaa, qofkaad rabtana waad ka xayuubisaa. khayr oo dhan adaa haya, wax walbana adaa awooda. saa darteed waxaad arkaysaa midna waa la saaraa, midna waa la siibaa. midna xukunka isagoo saaran baa inta laga soo dejiyaa xabsi la geeyaa.
midna xabsi isagoo ku jira inta laga soo saaraa xukunka la saaraa duqan lala tacaalayo xabsigu ka soo baxay xukun buu uga soo wareegay sooma soo saas maaha duqa waddanka hadda lala tacaalayo xabsigii baa xukun looga wareejiyey meesha hadda buuqu ka taagan yahay masar ninna madax buu ka yahay ninna uu ka ahaan jiray ninkii ka ahaan jiray aw moogtiin maalinkii kacdoonkii ninkaa radi bilaabanayay ninka xukunka haysta xabsiga uu ka ku jira laftiisu ku jiray waa la isu weydaariyey kana ma filaynin kana raalli kama ahayn kana laga qaadana raalli iyo codsi iyo ogolaansho lagagama qaadin kana adigu xabsigaa ku jira duro ku jira baad xukunka toos u qaban codsi uu geystayna ma ahayn waxuu ku fikirayana ma ahayn tuuti lmulka man tashaau watanzicu lmulka minman tashaa qofkaa rabtana waad siisaa kaa rabtana waad siibtaa kan nasiib kana saar allah baa iskale subxaanahu watacaala marka xukunka allah bixiya allahna kaa qaada qofkuu rabana isagaa sharaf ku yeela kuwa xukunkii laga qaaday laakiin xurmo iyo qadarin haystoo badan baa jira soo ma kuwana xukunkii laga qaaday sharaftaa laga xayuubiyey sharaftaa laga xayuubiyey duqii qadaafi ahaa sidii koo isagoo arkaya soo shan laguma dhufan intii la jiijiiday kan mubaaraga xiranna soo xabsi iyo maalin kasta isagoo maxbuusa lama keeno meeluu dadka keeni jiray tudillu man tashaa tucizu man tashaa watudillu man tashaa liberia saajinkii kibirka badnaa ee dadka dhameeyey soo isagoo nool xumin saamul dhow lama gogoynin ilaahi subxaana watacaala baa xukunka haya cidduu raba u siiyaa cidduu rabana waa u diidaa xoolahana waa sidoo kale cidduu rabana isagaa u badiya cidduu rabana isagaa ku celiya faama alinsaanu idaa ma btalaahu rabbuhu faakramahu wanacama fayaqulu rabbii akraman haddii ilaahay xoolo badan siiyo ilaahay baa jecel buu u qaadanaya ilaahay baa isharfay wa amaa idaa ma btalaahu faqadara calayhi risqahu fayaqulu rabbii ahanan risqiyaa ku celiy allah subxaanahu watacaala soo xadiidkii ibni mascuud ma ahayn adoo caloosha hooyada ku jira markaad 120 beri gaadho uma yursalu ilayhi lmalak fayumaru biarbaci kalimaati bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciidun risqaaga maalinkaasaa la qoraya wax kastood samayso ilahi subxana wa tacaala adduunya ninkii raba wuxuu yihi intaanu doonaanu siinaynaa liman nashaau qofkaan doonaan siinaynaa intaa lagu siinayo iyo qofka la siinayo allah baa iskale subxaana wa tacaala halkaa waxaad ka garan kartaa adduunyadan inaad heshaay caqliga kuma xidhna aqoon iyo khibradna kuma xidhna waxaad ku garan aqoon iyo inayna ku xidhnayn keliya adduunyada inta xoolaha leh badankood wax fiican ma soo baran nimankii profeysarada ahaa ee bidaartu madaxa kala goysay kuwa aan shahaado wadan bay shaqaalo u wada yihiin sooma hadduu shaqada ka caadiya biilka intuu waayo isdaldalaya dakhtar buu noqday injineer buu noqday ilaahay baa saa u talagalay adduunka ma kala socdeen haddii ninkan aqoonta iyo xoolihii la isugu daray xoolihiisi yaa ka shaqayn lahaa halkaa waxaad ka garan kuwaan wax baran oo badan oo taajiriina oo wax ma qoro waxna ma akriyo suuqay ku saxiixaan waa billionaires nimankii profeysarada ahaa ee madaxu caddaaday ee bidaartu ebed ka dhigtayna waa wada shaqaalo arjibay ridda la wada taagan yihiin jaamacad baan soo dhameeyey PhD baan wataa professor baan ahay kanaan ahay arjibay ridda la wada taagan yihiin aqligana nin caaqil ahoo garta kala gooyo xaajooyinka xalliyo loo soo noqdo lala tashado oo biilku ciyiiri ku yahay oo badan soomaydale iyo mid dabaal oo xoolo meeluu kala dhigala sogo badan mayd arag haddaba xoolahani waa qismo ilaahaye aqoon keliyana ma aha asbaabaha qayb kamiduu risiq lagu raadsaday kamid tahay
meelaha qaarkood haddaad tagtaan nin soomaaliyeed oo 1,000 neef 2,000 neef oo geela la arkay oo taajira magaciisa ma qori yaqaanaa tiriya weligii meel nal magaalo ma arag magaaladana waxaa ugu iman caaqilkii cilmiga badnaa oon caawa dab loo shiday ilmihiisi marka niman yaho risiqan ilaahay baa haya cidduu rabuuna siiyaa mid baa idin weydiinay weli hebel cibaado iyo cabsi ilaahay uu la cayrtooday ma maqasheen يوم مقشة سوي عبادة سنة يعيدوا لكن دبي معاصي وقريب ولا عيدوا بيواد مقشة حاول سهلا التوك كبري وحناقي وقفت لي سوى الدكان في عقو فريه الدكان كانوا يحلوا على راسهم وما تنوض قبضوا مقالة يكتروا وضنك يكتروا حوله بود أنواع عيدوا بي آخرنا السيقة دون السيقة لكن صلاة بتكلي يا قرآن أخلص ببرنا iyo soomi jiray iyo sadaqa badna wax u caydoobay wali ma naaray madaxa iyaguna waxaa ma amriga iyaguna anaga horay haduu batay laakiin inta cibaadada ilaahay wax ku bulaala mooyee wax ku caydoo wali ma naaray hadday caruur iyo ilmo tahay soo ilaahay ma dhihin lilaahi mulku samaawaati wal ard yakhluqu ma yashaa yahabu liman yashaau inaathan wa yahabu liman yashaau dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إلهي روح الرواء ورا كون روا كبوسية كون روا ويل البوسية كون روا ويل يكبوس ودرا كون روا من أرو كندا الماء أنت أدوير ويا عينه يقول سو المطر ما كرهت أنت وحوي إسقاء وإحنا لو هاي ما أنت نستطيع على قدر ما ويا صلا وحلاها بحية حيوان مدة غير كذب بارك يسون على بعض أما الله بيسون لي ويلي بأمرك كلا تجاهد والبعرون نري كنا وعنا يا كنا وعنا يا لكن يقول له قلت الجنة وحيسون على كل رب الله واقع قليل لأنه كلام ماي يقولي هذا بمنطقة شيخ البايل ما الله ضمتا يقولي بترتا أنا هذا حل الدليل اللي جوا سواك تيجي تيجي ما الأصل كطيب قال القبور وانصاد وإمانتي قبورتي قبتك وكان كوي معاكي كسر وحاني وكاسي ماشي وقرا دوية هم مرينا قبض داسن تيجي وان تجيو جيت كياك تضع انت عمرك يا دم يا بعض كحرة قفك يضل بدو كحرة هذا وحارد يمكن ترى ضل الله كحرة وحارب تخصص كيسين أسوق هذا وأنت جي ماشي قبض ديسي ذا كسر تري مع مقام كي تري قلوينه ربع وفني وما شاء الله قيريا أنا ورايستان ده معايا أدي بحواية نقدر يراعي وجه من مركب وحيد كان أنا قوة رجل وحيد أسبوعي هران ما شاء الله هاي meeshan oo la dhaqayo la xaaqayaan mid hay biyihii laga xaaqay dhulka lagu qayilayo baa baaldi lagu shubay hay shan hawaana baa koob lagu shubayo cabay hay haweenkii baa ay wili shantii baa maraysto waxaa u timaadeen waxay dhaheen buri ilma rabna oo waasilayo sheekhan weligan ilma bixintu ku takhasusay baa la jiray ilma bixintu ku takhasusay biyihii wasakda ahaa lagu dul socday lagu dul qaynay waxay u cabayeen caruuraadin caruurta oo maqaamka ma yaalaan ilaahay baa haya yaa wali ma yeeshaa ilaahay baa haya haddaba ilmaha aan saa dhib u sameynay qashinka loo cabayo si loo helo ilaahay baa haysto cid raba siiyo xoolaha iyo maalka ilaahay baa haysto xukunkiisa jagadi allah haya انت وانا الهي وحينو شيء الهي عبسدي با لو هلا اقوانتي صلوات واتقوا الله معكم حاجه الهي كعب صدق ويعلمكم الله الهي ما يحد مره يعلمك دي فضيلك والهي سفع وعبس علم وابو فضيل لكن ربا الله بلدي علمي اقوان سفع انو غارينا يحيى halkay ka dhowday waata cabsida ilaahay baa loo maraa
wattaqu llaha wayucallimukum allah. xoolaha iyo ubadka sawir buu qur-aanku ka bixinaya. adoo xoolo badan oo caruur badan oo nabad haysta oo biyo durdura iyo beero dhirtu qoyan tahayna dhex jooga. innaga halkaa dalxiiskeena ugu baadan inoo dhaaftaa markaad carruurta iyo reerka kaxayso oo cabsi ayna ku haynin, jeebkana xooliya lacag kuu buuxdo, meel badda ama webiga baalkiisa intaad guri weyn ama beer weyn tagto biyuhuna durdurayaan, caleentiiyo dhirtiiyo dhulkuna saa u wada cagaaran yaho qoyan yahay, baa qur-aanku wuxuu leeyahay cabsi ilahay baa intaa lagu helaa. nabi nuux baa ilaahay yiri calaa lisaani qowmkiisa oo la hadlaya, faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara. ilaahay dambi dhaaf weydiisto usoo laabo ka baqa u idin dambi dhaafaya. yursil isamaa calaykum midraaran, roobaan kala go-lahayn baa laydin siin. wayubdidkum wuxuu idinku dari biamwaalin wa baniin, xoolo iyo wiilalna waa lagu siin. xoolihii waa kuwa soo maarti, caruurtiina waa kuwan. wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaar, beerihii iyo dhirtii qoyanayd iyo biyihii durdurayna waa laydinku daray. waxaan daydayaynayba ilaaha laga cabsaday gashay soo maarti, xoolihii iyo caruurtiina halkaasay galeen. marka ilahi wuxuu leey walaw anna ahla lqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaai wal-ard. cirka barakadiisana waa usoo deynla ilaah intay ka cabsadaan hadday si fiican u rumeeyaan, oo roobkii iyo raxmaddii waan ku fasixi lahay. hadda laga xelay oo laga xeliday dhulka barakadiisii, dhirtiisii, khudaartiisii, midhihiisii, beertiisii, ubaxiisii baanu saa ugu soo deyn lahay. biyaha soo ma aha waa lagu istaqaamu cala ariiqati la asqaynaahum maan gadaqan, biyo badanna waa siin lahay. meelaan oon lahayn, oon abaar lahayn, oon lahayn gaajo lahayn baa cabsi ilaahay lagu helay. cabsi ilaahay baa ka heli. laakiin dhulkan abaarta noqday ee beeri baxaynin ee roob lahayn maxaa dhibka keenay? walaakin kadabuu faakadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun. dembigii waa marka macsiyada qof iska daaye ummadda dhan baa dembiga la caydhowda. kaasaa meel shilin laga keena la waaya. xadiidku nabigu kusii tilmaamay taas waa xadiis ibn cumar wuxuu yihi 5 ب5, 5 balaayo 5 dembi baa dhala. waxaa kamid ahaa dadku hadday ballan fur bataan. innaga ballanta see loo ilaaliya hadda? ballanta afrikaan soo ma ballan xuma hadday dhacdo oo ballantii la jebiyey, ama qof lala galay, ama qabiil lala galay, ama dawlad lala galay, ama koox lala galay, ama deris lala galay, muslim iyo gaal lala galay, ballanta hadii la ilaalin waayo maxaa dhaca? nabigu waxaa kamid xadiidkaa 3 baa dhacday. ukiduu bisiniin, abaar baa dabada loo geliyaa. roob la-aan, abaar baa la ysku salidaya. roob la-aan, qax, biyo male, baad male, xoolihii noolaan nag bay dhahayaan. marka dib xooli biyo baad hadday waayaan say ku noolaan. okay, dadku beer hadday bixi weydo oo roob iyo beer la waayo, raashinka iyo cuntadii cirka isku sheegay sooma haloo gurmado, nafaqa hala geeyo. waxaa ka dhacay in haysa soomid arag waa kowf. mid labaad wa shiddatal mu'anati, nolosha adag, biilku adkaada, wax walbana kharashku cirku isku shareeri, suuqiina wuu isa soo xidhi, wax fiican lama gadanayo, suuq fiican ma laha, suuq xumaad baa dhacay. so lama calacalay hadda. noloshii, kiradii, dhakhtarkii, biilkii, waxa laalay wixii fiigii, iskuuladuna cirku isku wada shareeri. balansi maaha markay suma dhigmaan. marka kharashkaaguna kor buu u kici, dakliga iyo inkamkana hoos buu u dhici. wa shiddat almu'anati wey. waxaa dheer wa jawra sultaani caleyh, nin madaxo jaa-ira oo midna dila, midna xidha, midna gawraca, midna wajaafa, mid qoorta kala jara, mid xoolaha ka dhaca, mid gabdhaha ka kowsadaa lagu siidey. innaga soomaaliya intiiba mayna haysataa. intaaba waxaan u malaynayaa de qaarkeenna in badan bay arkayeen, qaarna way ku dhex dhasheenba oo weligoodba taa waxaan haynaba in aragba hadda nool maalmeedka ay ka mid tahay.
dee raggii intii sagaashameedii kadib dhalatay intaa inagoo ku jirruun bay kusoo dhex koreen soo ma wax kalaba ka duwan mayna arag marka taas ayaga dabiici u ah xaaladaasoo ninkii ka bedelan arkay uu xanuunsanaya baa inaga dabiicin o marka waxaa rabaa inaa idhaahdo cabsi ilaahay baa xoolihii iyo ilmihii iyo aqoontii iyo xukunkiiba lagu gaara ilaahay baa dunidan iskale isagaa la weydiistaa walidaalika dunida haddaad u fiirsataan cabsi ilaahay lagu caydhooba maydaan arage laakiin macsi iyo dembi lagu caydhoobaad aragteen dukaan buu furan waxoogay mushaarbu waxoogay bukeedi u yar kala socon markaasuu saqajaannimo iyo naaga daba wareeg bilaabi maalinka dambe daroobu baran dukaankiisu ina daroobo u siisanayo ina naago ula daba wareegayo ina looga shaxaadayo uu maalinkii dambe boodboodi taas ma dhacda kii dilkana tusaale ku horreeyey waawo inkii intii nayada South Africa joogta taa aragteen dembigii la galay waa qabaa'il intay daf isdhaxaan bay labaduba qaxi inna way dhiman in waa dhaawac xun oo curyaan bay noqon in way qaxi in xoolaha laga dhici gaajo iyo qax iyo cabsi iyo libaas aljuuci walkhawfi baa qoorta loo geli oo haddaba cabsida ilaahay baa wax wanaagsan lagu gaadhaa dunida taasi waa waxaynu hiigsanaynay taqwada ilaahay zaad waxay u noqotaa oo kaleeto bele iyo baas iyo wixii laga cabsadoo dhan waxaa lagu xijaabaa cabsi ilaahay dembi laguma xalliyo soomaalideena burburkeeni intii muddada dheerina haystaay meelo badan baan ku daynay oo ilaahay cabsidiisa ahayn welina waxa waa isqabanaya laba way isku toosi lahaa halkii unbay ka miismaysaa maalin ka dambe unbay ka daraysaa laakiin cabsida ilaahay markay xaaladdu cakiranto oo xaaladdu ay adkaato cabsida ilaahay baa loo baxsadaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ilaahay ninkay ka cabsada qofkii si fiican uga cabsada maalinkay adkaatay xumaato meeluu ka baxo u sameeya waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra arrintiisa waa u fududaynaya arrintii meel aadaan filayn baa lagaga fududaynaya ciriirigu hadduu gaajo ah wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib meel aadan filaynin unbaa wax lagaga soo daynaya fog adoo maanta yaaban oo le war maanta iyo xagee ku dhaqaajisaa meel aadan filaynin unbaa lagu furi fog haddana dembiga iyo macaasidu xoolaha way baabi'isaa reerkana way baabi'isaa xukunka iyo maamul iyo jagooyinkana way baabi'isaa aqoontana way fasaadisaa oo aqoon-yahan hadduu noqdo oo daroogadii khamrigana cabayo ilaahay u yaqaanana uusan rumaysnayn muxuu ku tari danu waa arkay ilaa 7 professor oo Soomaaliya oo ilaahay rumaysnayn ma arkay nima waa hore tagay oo jarmalka degan oo dhaqaatiir iyo injineer iyo macallimiin jaamacadeeda waa Soomaali raggii Soomaalida ah way Soomaaliya sida ka yaqaan meel ay ku sheekaystaan baan ugu tagay wuxuu ku leeyahay marka cabaar sheekayso niyo weli badow baa tahay maxaa dhacay ilaahay baa ku mashquulsan tahay ka aqoontiisu maxay tahay marka uu qeybto midba wuxuu nagu yiri ananiyo waxaan malaynayaa adiga fiican tihiin haye marka tukanaysaan saad jimicsi u sameeysaan ma sameyn karaan si xubniin u jajabiyeen jimicsigiina ma sameyn karaan halkaas ka maraysa oo oday Soomaaliyeed waa waxaan rabaa inaan idhaahdo qaybta hore hadalkeeda niyo tawa adduunyada waa ayaan kooban aakhirana dawaynu wada ognahayo xilliga sakaraatu mulka laga bilaabo ilaa janniya naar la galo cabsi ilaahay baa loo baxsadaa ilaahay aad buu ku soo koobay oo wuxuu yiri innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ku iimaaniya toosaan la ka cabsi isku daray tatanazzalu alayhim almalaa'ika alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ملائكة بايمان ورتي ملكو كوي مادو كلي لو ودي مايو ملائكتي خير كي جنة صور راعي وحال ليهي ألا تخافوا ولا تحزنوا وحال ليهي حالة عسوية كل سعوده يا قبري قبل الله السكرات الموت لقبل الله قبري الله سيمر قيامتك وحكد بيا لك لما حيو عبسا حباك كومي دمارات ما هيستا حباك عبسا وحي تريد كتكتي ضدك هذه مالك هذه كليه هذينا وعباها ملوهون او تيرايون كون ولي وعكا في عمر وسين وهذا قال دقش انت كتكتو هذه بيرش كله قارب عسوب له وسيون لنا كان قاضو كيهوري الحمد لله كي لا يهدي هذه صوما إلى عاص وغالدا تقول الدكتور وحالي أولي تلواتك يا وارد دبادر ما كان عليه كدي بعدك ولبشة ولا دجية بيرا لوسمي جبري يلليه شري تركي حوالها كرة فاتناية ما تقول الله دي جيل أرورين الله دي عدد النماطي يا أبارها كرة فاتنا بيرتي واتا وليه واكا دركتي واتا مجالدي واتا كاسين أنتيا عين إلهي النبي ودركني أما نوصل نبيسا وأنا نوصل وطايا لا يقول النبي النبي ودركني أما نوصل نبيسا هذه قارب في عم بعدين لو سيجي يقول في عم يا ما تقش كل يقول عليه ما دي صلاة كي لا يبقى منافي صادرت المحل ولا تحزنوا دريد واحد ناس يسوق معنا الله هين أقربك الله إيه وحكفي عم بعض المسيد وحبها كول ولد عدي نحل عن أحشو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة الليلين بالله قادي إذا وصوا عبستين وصوا شقيستين كنت الشعر يسوع ملائكتي أعطانا يحيى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنت مولدين قرب بان بيدينا آخرة هذا لقب بالله وانا أنك قرب بيدينا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم جنة داسنا الله علي وحي نفتي نتشعلاتهم نبت كيليسان ولكم فيها ما تدعون وحكستون قدستان ويونتان على الإنسان نزلا من غفور رحيم إلهي إنت بالله أفكر النحريس تبنى مرتقات هي داق الإنسان يوم آخرنا هو تاسك ما الكلام بجرت عبسينا بجرتان مرك إلهي مركو إلهي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقول يملك الألباب أدونك الزاد كبلك وحاربتان وقاريسان وحاد كعب سنة إنسان إبنا وحاد كقبت بعد إنسان آخرنا الزاد وقبلك جنة الليبانية قبر واسعية قيامة عرش الله على الصلاة كقاريسان قبر عريضي هي سكرات الموت حبني قيامته اللي قلتي النار نواد كقبت بعد إنسان وردولي آخرها زاد كاس وحاربتين وحاد كقاري وحاد كبقى إنسان وحاد كقبت بعد وارمي وعبسيد إلهي الله كالمست عبسيد إلهي الله كالمست الدنيا المشاكل كذا هي محنة هذا عبسيد إلهي ما فرطانس هذا إسلام تقول لك وعروسك وحكتان قلوبة إلهي ما هي هذه ساعة اكتساد إلى اللي أجيبه كل هذا ساعة كعبسته إله يتوسع تريبا مربور لغني لك ويسوتوسي واتكسر ضليسا عبسيد إلهي أنت تكون مقنطهي وحبكاها مان معي ذلك نقار صلاة المساجد أسير في عروضه كذا سولي سوق رشاقيستا يكحوا ليلي ذلك سوي كعروا ليلي وحالا كيسا كون مساجد كان ولقي فود السوق لنين الدنيا دينا كل بان قال له حاجة مركان الكعاد قرآن الحسوستان لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قالوا تشقروا درب تشي ومرك على ركته الدنيا وطع ملوشيسي آخرنا إلهي أمر ويسوع صاحب يكون أنت عذاب بويا هو حالك يسار مسلنا ودرب تشيفا مسلم درب تشيفا ذلك صلاة معي صوم معي عبادة لا معي الدنيا درب ياسو كتشيفاس وطبقاسو ويترك كراحية طبقاسو ويترك كراحية الدنيا لا عدو ولا آخرة marka nabayo mixnada aad ku jirtaan
haddaad ilaahay ka cabsanaysaan oo ilaahay si fiican uga cabsataan dadka locationada lainkagama laayeen ilaahay qulubtiinu iswaafajin lahaa qulubtiinu markay iswaafaqdana intaa hanti isku darsataan baad magaalooyinka business iyo ganacsiyo waaweyn ku yeelan lahayd markaasaad location ba ka maarmi lahayd laakiin markay dadku dambaabaan qulubtooda inay isku dhuftaan way iswada khilaafayaan kadib walaala isnacay wayna xoola yareeyaan wayna xabaalo badiyaan baad noqonaysaan saatiin sooma soo hadda soo arkaysaa kama jirto soomaali meelay joogto mushkilada waa haysata allah ilaahay u fududeeyo ilaahay cabsidiisa zaad ka dhigtaa iyada hala kaalmaysto iyada aakhara zaad looga dhigto waxba hor istaagi kara ilaahay cabsidiisa markii saa looga sheekeeyo qof walba wuu jeclaanaya inuu zaad ka dhigto qof walba muslimo oo wax garanayana wuu og yahay ilaahay cabsidiisu inay u fiican tahay laakiin waxba hor istaaga ilahi subxana watacaala labuu kusoo ururiyey laba xaaladood labada xaaladood midba waxbaa ku kala iskor istaaga beri samaa iyo beri xumaa maalinad laban tahayna caqabad bay leedahay ku hor istaagta maalinkayna waxoogay kaa jajaban tahayna qaab bay kaaga luntaa cabsida ilaahay dadka intooda badan waa maalinkaad laban tahay qofku hadduu waxoogay jago helo ama waxoogay dhaqaale helo ama waxoogay isyar mahadiyo horta wax kaluu noqdaaba sida baaloon la afuufay bubuuxsan isla weynaanba bacdaa haddaad afuufto waxa uu buuran oo biibiibayay noqon isaga dhanba ma xasiloona waa biibiibaya isaga hadduu dadka ugu gaaban yahay waa isla dheeraanaya hadduu u taag daran yahayna wuu isla cuslaanaya wada jirjireelaha soomaalia maxay tiri wada jirjireelo mataqaana baalka koloba midabada yeesha yaa markuu socda lugta saarka cabaar intuusan dhigin sababta waxay dahay kibir baa hayo dhulkaamu kula go-aa buu isleeyahy tabartiisana waa aragtay soo ma dadna waxay yidhahdaan kaneeco barwaaqo joogto dad soo cuntay baa geed ku degtay iyadu way isla dibirsan tahay markay rabtay inay duushay geedkii la hadasho waxay tii geedu waan duulayaaye isxaji dabaysheedu inay riday ka yaabaysta geedka laakiin tabar intee nag meelaada adigii wax dheer culus baa isla noqon markaad waxooga yar sibaad u afuufmi taas ilaahay tilmaaho wuxuu yihi walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula waxba dhulka kibahaya haysla weynaanin maxaa yeelay si kastoo isula dheeraatana buuraha gaari maysa si kastoo isla cuslaatana dhulka dilaaci maysa inaka lan takhriqa alarda dhulma dilaaci karta walan tabluga aljibaala tuula buurahana dheer gaari maysa khalqi kaa dheerna waa jira mid kaa adagna waa jira marka laakiin adigu saa isla tahay iyo takalaha waa kala laba insaanku saa darteed wuu qooqaa wuu kibraa markuu beri samaa joogo kalaa ina alinsaana layatqaa ardaa an istaqra insaanku wuu kibraa markay la noqoto inuu isku filan yahi oosan cid u baahnayn dabeecaddiisu way bedelantaa soo mayd arag lakiin fiicnaaye dadka la shahayn jiray la sheekaysan jiray ee dadkiisa kamidka ahaa maalinkii uu xoogay uu iska yar dareemo saas waa dhan kaliya walaa tusacir khadaka linnaas ninkiiba ninkii ma aha dabeecaddu dabeecaddii maaha socodku socodkii maaha dhaqanku dhaqankii maaha mararka qaarkood waxaad arkaysaa waa caato laakiin labada gacmood saasuu isaga wadaa inuu cayiray baad moodaa ma cayirine psychologically ama nafsiyan buu sida baaruurka iyo bacdii afuufsay afuufaya markaa saa u tagan yahay isu haystaa kan laanan insaana laa yatqa beri samaaga waa la kibraa xukun buu helay kibir kan qac kasi kan qaliib kan hoosta geli kan ku istaag kan majuuji waa kibir xooluu helay xaafadda ka gur kaa deg kaa bedel kaa saadhe waxaa ma cuno meeshaa ma fadhiisto soo adigii shalay gidaarka wax ka qaadqaadanaya maaha ninkii shalay tuugsanayay ee shaha iga bixin ku lahaa ee haddii saxanka mukhaada intuu soo galo markii raashinka saxanka lagaga taga cuni jiray may waxaas ma cunaad maqli war waa sidee waa kibrey ninka waa hufaya xoola hadduu yeesho insaanku waa kibraa
haddii uu isleeyahay carruur badan iyo dad badan iyo atbaac badan baad leedahayna waa kibraa dadkale wax dheertaa hadduu islahaa qofku duqyaan iyo kibirkaasi xaqa ilaah iyo taqwada ilaah iyo cabsida iyo meeshii laga rabay buu diidaa kuwii nabi maxamed xasan salaam gaarsiinayay intay yimaadeen ba waxay dhahan wareedhe kuwan masaakiinta kula joogay anagu meel ma wada fadhiisanee sharafta ayadaa ka weyn masaakiin ma ugelin la fadhiisanee maalin gaar annaga noo sameeya meel gaar meel masaakiin fadhiyaan maxay hadda tii way jirtaa ogaada rag baa isa soo raacaysaa yar jeeb culus makhaayad baa dii nagu leex mamay tatay masaakitana kama fadhiisanay meel kowka shaaha konton ran yahay uu raadin isagoo meel 5 iyo 4 uu yahay heli kara xogay markaad uu yeesho makhaayadii uu ka go-a sooma anna kuwa lama fadhiisan oo kule mar waxaan dulliga lama fadhiisan maradii shalay heesu xitaa gashay fiidka ka bixi jiray sooma isagu waa isagii cuntadu waa cuntadii meesha waa meesha maxaa isbedelay xogay uu isla yar weynaaday markaad haddaba ama xoolo yeelato ama xugun qabato ama carruur badan yeelato si ay noqotaba markaa aqoon yeelato markaad beri samaaga ku jirto duqyaan iyo kibir noocya badan oo dadkii aad xaqirto oo wax badan ku tumato oo marka dambe safka masaajidka wala masaajidka u uraya karbadkiisa masaajidka aan raadin aad tiraahdo guriga isaga dugan xasan boor baa ka qaadi wax jiniya jaan oo hada kuwa xoolaha badan ee waxaystaay wax ka cudur badan ma dhiikar buu qabaa sonkor baa haysa cholesterol baa ku dhacay nafto baa ka bixin dadka xoolaha badan baa ugu xanuun badan waa imtixaan ninka darbiga jiifa ee waxaa iska jabsanaya ee makhaayada dadka gacanta la gashanaya ka caafimaad badan ay ku fiirsan isbitaalada markaa tagto kala u qaalisan buutay waa la furan mid yar baa aan ficlaha waxaa rabaa inay idhahdaan beri samaagana waa la kibraa markay kaa jajaban tahayna waa lagu shaqaystaa ay ka jajaban tahay biilkii baa xoogay ciriiri galay meel uu xoogay casho ka raadiyuu doonayaa ninkaa kibray buu kaba u noqonaya marka ninka dadka lagu garaacayo ee ummadda lagu dulminayo ee wax walba lagu sameynaya isaga noqon inta burcade innaga soomaaliyana soo martay ee wax hogaaminaysay ee kibirkiisa meeshuu maraya lala yaabana kibirka inuu gaadho inuu bil raadiso maduuf qaada loo tuuray ama xaway saxan bariisa la siiyey unbaa gar wardayso dadka gawda ugu haysa sooma hadday xaaladdu kugu adkaatana ninkii ushay garab ha u noqonino bil iyo nolol baan ka raadin intaad tiraahdo diintii iyo xaqa iyo dariiqii toosa saaxa kaga leexanin balay saas darteed labadaas ilaahay sheegay saas darteed markaad beri samaa joogtana ha kibrin markay xaaladdu kugu adkaatana nin xumaatay iyo dembi wada garab ha ka dhigan oo garabka saar oo adduunyadu bal aakhara marun baan toobadkeeni horta waxoogay aan soo yar kabada adduunyada hadhihin ilahay markuu ilahay nabigiisa taqwada wuxuu fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tatagaw kibrina wa beri samaagi inahu bima tacmaluuna basiir walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey khaa'imiintii iyo kibraaniinta ha isku janjeerin oo ha isku nabin fatabasakum annaaru beri xubaagi waay kan halkaas waxa ka raadino dawladahan waxbay dulmiyaan iyo waxbay dhaceen iyo waxbay dileen iyo laleeyahay in biildoon baa waxa u samaynaysa soo bilyan oo ninka raadinaysa ka askariga bilyan oo uu raadinaya ka shaqaalaha bilyan oo uu raadinaya ka wardoonka bilyan oo uu raadinaya noloshii risqii baa meesha ka galayo waxaa way ka jajabantahay hadduu soo wax isku filan haysta meesha ma galaan ma nin boqol intuu qaado meel xabad ka dhacaysa aadi lahaa oo se ilaahay aakhira janno kaga rebi aduma aadi lahay inta askarta qorata waayo فأنت بعض المدة صوما إن بعض المدة على شو شقة يستمحي وأنا وحول نروح شقة شفتين مجال دي ميلو كجلا جرب وهاي إذا هذا كان النوت دجال المال ما كنت تشيل نحطيه على طحنا وقصينا نقول يا أنا بقول دي بينا قلنا حكتها مشان نبري أنا دارو بنا سحرة وما هي شيف هي عندها طعن هلا صحيح قبل قريب وحي كوري ماذا شيف كي عندها إنه خطر فيه حكتها بريء بكله
maleeshiyaad baa la yidhaha soo ma meelaha qaarkood maleeshiyaad baa looga yaqaana marka waxaa rabaa adaheeda walaa tarkanu ila aladiina dalamuuna kuwaas waa caqabada kaa hor iman karta ilaahay cabsidiisa kaa hor istaagi karta waa ama risiq raadin noloshaa adkaatay oo meeshaan madax isugu tuuri waa meel dood dembi ah ama waxoogay waa yar dallacdayo jeebkaa ku yar buustayo sidii waxaa kugu dhacday labada qisaba qur-aanku ka sheekeeyey suurat lkahfi jumcada waa akridaan soo maa akri wadrib lahu matala rajulayn jacalnaa liaxadihima jannatayn min acnaabin waxafafnaahumaa binakhlin wajacalnaa baynahumaa zarca kilta ljannatayni aatat ukulaha walam tadlim minhu shay'a wafajarnaa khilaalahumaa nahara wakana lahu thamarun faqaala lisaaxibihi wahuwa yuxaawiru ana akharu minka maalan waacazu nafara laba beerood buu yeeshay hanti dayn uu soo qaadayna waa geliyey si fiican bay isugu toostay labada dacal iyo daafuhu ka baray uu qiimeeyey waxay la noqotay ninka beerta ku aglay inuu ka shaksiyad fiican yahay oo marka hore isku mid bay ahaayeen ana akharu minka maalan anaa kaa xoolo badan intaa keliya ma ahee waacazu minka nafaran kaana shaksiyad fiican dan kaa xoolo badan kaa shaksiyad fiicnayo saasuu isu haystaa sooma ninka xoolaha badan ninka faqiirka inuu ka shaksiyad fiican isu haystaa sooma waxaa laga yaabaa dabaal inuu yihi waxna aan aqoonin caqlina aan lahayn laakiin waa qismi ilahi subxaana watacaala ninkii saa yidhi kadibna xoolihiisiibuu eegay tan weliga laga faqri maayo maa adunna an tabiida haadihi abada tan weligeeda dhammaan umalayn maayo haye saas darteed tan weligeed hadayna dhammaanayna oo qiyaamada la sheegayo wamaa adunnu saacata qaa'ima qiyaama iyo aakhira inay jirtan aan umalayn maayo kibirkaa buu la gaadhay fiir laakiin kaba soo qaad midig alla taliba ka soo qaad hadday dhacdo walain rudidtu ilaa rabbi la ajidana khayran minha munqalaba kolla wax ka fiican baa la isii muri tan waxa laisii waa la jecelahay haddiiba xoole ilaahay siiyo kaa fiicnahayda wuxuu ku daray allana way jecelyihin ilaahay jacaylkiisa xoolaha ku xirtay maxaa ka dambeeyey dab baa lagu sidaayay soo xidaa meeshuu gelgelin u yimid gabagabo isla hadlay marka isku dhex buuqay dariiqaasu wareegaya faasbaxa yuqallibu kafay calaa maa anfaqa fiiha wahiya khaawiyatun calaa curuushiha gacmuhuusaa leeyahay baabaha in shalay taajir ahaa dembigiibaa xoolihii baabiyo u faqiray soomaali qaaruuna wa isaga bakaaladiisa furayo wada dadka cuslaynayay waxaa layidhi ilaahay ka baq ilaahayna xasuuso si ilaahay kugu nicmeeyo xasuuso inamaa utiitu calaa cilmin cilmi wali aqoon iyo raganimaan ku gaadho waxaad ka hadlaysaa maxay maalinkii dambe bandhig buu sameeyey la salaxaad wuxuu rabaa dad inuu iska reebay o maalintaa kadib aan lala hadlin sharaftii iyo quruxdii iyo wixii miskiin qalbi jabin jiray oo dhan iyo nin kastoo adduuniya dhanaba raac ahaa wixii dhaldhalaal indhaha saraxaadinaya oo dhan buu soo hoxeeyey waase soo diyaariyey bandhig magaalada dhexmar buu sameeyey fakharaja calaa qawmihi fii ziinatihi dadkii labaa loo kala jabay qola tiri kani meel xun buu ku socdaa ilaahay taqiin kan suu ku socdo waa suu ku halaagsami laha kan meel xun buu ku socdaa walle mawdkiisi wuu cagihiisa ku raadsanaya iyo qola tiri alla ayaan badanaa qola tiri yaa sidan oo kalaana iga dhig qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim alla waa nin nasiib ayaan badan alla yaa intaasoo kala nasiib waqaala aladiina uutuu lcilma wailakum hawaabu llahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yuwaqaha ila saabiruun maxaa dambeeyey fakhasafnaa bihi wabidaarihi lard isagii hadiisa dhulkaa lala gooy famaa kaana lahu min fiatin yansurunahu min duuni illah qabiil koox jabhad usoo kaalmayso usoo gurmato ilahay wax uga qabata lawaa ilahay did kaala soo gurma karta ma jirta adi waxaad ka hadlaysaa nin dhul lala gooye hal malakumowda nimu u yimid haddaan hareeraha ka fadhina maka celin karnaa
reer hebel oo dhan hadday isu yeedhaan haddaba hal keliya intooda dhan la isku daray halkaa malakumud ma ka qaban karaa ruuxa adaba tabartii fiiriyo haddana kibirkiisaa la keenaya hal malag baa loo soo diri nafta uga qaadi adoo hareero fadhiya war nafta ma igu celisaa maya waxaad aada u jeceshahay xaataa inaad ku celin kartaa la isku dayaa aabbaha loo naxariisteen nin buu tusay soomaaliyeed annagoo socod wuxuu yihi ninka ay soo socdeena kaa maraya si fiican u fiiri waa fiiriyey markaan dhaafnay baa yidhi muxuu ahaa wuxuu yihi ninkaas waxaan taagnaawi isagoo ay hal geela oo aada u jeclaa ka sakaraaday inuu nafta ku celiyo isku day marka markuu arkay nafteeda ka baxayso buwaafka dhabsiiyey islaamtiisii nahebla dabada qaba wi dabada iyadoo dhab siisay afkiiyo dabada ay qabteen hashi way baktiday wow waragii gadaal buahayna xagee ka baxday oo naf kale kugood u yimid maa la celin karaa falawlaa in kuntum hayra madiiniina tarjicuunaha in kuntum saadiqiin ida runtii taona akhalal ixsaan xirama ladinka yeelaynin tan ba celisaan badi ida runtii ta carabkaasa nafta ku celiyay marka tabarteena waa sidaas oo cishiga dulba la gaara si fiican u sheekaysan lahaa marka cabsida ilaahay ha lagu dadaalo cabsida ilaahay baa aakhariya adduun mazaal cabsida ilaahayna caqabaadkaasa iman doona dardaana labaad baan ku dariyo kan qur-aanku ahaaye dhowr qur-aanka iyo dhowr sunnada aad martin baaman lahaaye mid sunnada nabiga dardaarankiisana aan ku dara sala allahu alayh wasalam abu hureyra wuxuu werinayaa maalin maalmaha kamid jamca saxaabadu nabigu la hadlay wuxuu yihi warnimayo dhowr dardaaran baan sheegi rabaaye yaa ballan qaadaya oo ku dhaqmaya ama cid ku dhaqanto oo fuliso gaadhsiiya abu hureyra wuxuu yihi gacantaan tagay aniga nabigu madeynina gacantu dhabsiiya marka wuxuu ku yihi ittaqi lmaxaarim takun cabada dembi iska ilaali qof ugu cibaada fiican dadkaa noqon oo cibaadada ilaahay dadkaa dembiga iska ilaaliya uu ka aqbalaa dembiguna cibaadana laga aqbalin buu sababaa cibaada dhadhanta oo macno leh oo nuxur leh cibaadada nuxur bay wax ku yeelataaye taye tiro badan loo baahan 100 ragcadood oo tukato khushuuc lahayn laba khushuuc laha ka fiican ilaahay quraanka salaada wuxuu ku amaanay ma tiro bis khushuuc qad aflaha almu'minuun alladina hum fi salaatihim kuwa salaada laakiin maqana joogaha maxaa la yidhi fawaylu lilmusalliin alladina maca salaatihim saahuun nin tukanaya laleeya cadaab buu gelaya maayo maxaa yeelay maqana jooga wey muuqaal baa jooga laakiin qalbigiisu waa maqaya ma joogo salaada ba kama warqaabo allahu akbarti bay ugu dambeysay assalaamu calaykum tu kusoo xasuusta kusoo baraarugay sadarteed nabi alay slam maxaa kamid ah wuxuu yidhi waxaa badan buldad salaad tukanayo nus ajirka nus leh iyo kuwa 3 meelood meel leh iyo kuwa 4 meelood meel ilaa u gaarsiiyo 10 meelood meel leh waxaa jira wuli ruba musallin laysa lahu min salaatihi illa tacab taagni iyo daal mooye waxaa jira ka helo waa imaba jooga في صلاة خاشعون مبا أهبا أضاحي إلا الجورعي محالي لن يرى الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم في يدي إلهي تستحوك مثلا لكن عبسيد إلهي ضميرك كتشر تاكد صنك محالي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه عباد النحر وحيكوية لتهدم بقل إسكندري cibaadadaadu waxay macno yeelan oo qof caabida noqon markaad dunuubta iska daysid racsiisada taa waa dardaaranka koowaad dardaaran labaad uu ku daro wuxuu yidhi warda bimaa qasama allahu lak takun aqna annaas wixii ilaahay kugu deeqay ku raalli noqon iimaanka iyo ku iimaanso takun aqna annaas adaa dadka ugu xoolo badan cidna kaama hodansanoo kaama xoolo badan haddaad wixii ilaahay ku deeqo ku siiyey aada ku iimaan qabto lakin haddaad iimaan la-da xoolo badan waxba taraan saa darteed ba xadiidka nabiga ku yihi laysa alghina can katrati alcarab walakin alghinaa ghina nafs xoolaan xoolo badnahay qaninimadu maaha laakin waa inaad iimaanka qabto iimaanka soomaaliga waykan ka hadlay baada
كيف عربي وما هي إيمان لا هي سؤال هذا صرتك بدتك يجي ويرك وقدر الكريه واحد فاليرو بيقانا ده إيمان كبش وواحد بيوحى على الله كبت صعد نقطة وامتحان هذا الحوار بدنته الإيمان لا هذا هنا وامتحان حوله يغرق يالا حوله ضد يغرق وضع على حوالها مرنا إياها كله تعيس عبد الدينار والمقد حولها كله ويكد الاستاد حولها أقول هذا هنا وهذا انتفاع سلطان هذا الصومالي ده إن بدن حولها عليه هذا كيسان إن حولها بدن وكان قاعد جيسان إن بالغش يعني يقولوا وادي ارتبط الرئيسي حولها بدن نوادي ما إسبانة بالله في قلت حلو والله إني وترضى يا جماعة مقنع وعن قرنه لكن نيف عن الله هي تأكوه يا جماعة قرن كله قفيه قلن نيف كيسا كبر الله لو قلبي سوى النول هتو يسيه ما قرن كله يجري سوى قرن سوى يريب جوجانا يكره تي وحلا شيء وحلا شيء لا شعب الرحمة والعين بيعملوا شيء ذو قدير كيون انت لا ونحست كل يشوف بقرة النيف وجيل لها لحدا يتضوات النداء ونحيا ونكبرها هلو جيل مركا الله ورابيو يجيلو الدريرو جيلي وإن لك على الدريريو ولا كلا بحيو هل باسيحو يستاقل وكينا وعلى جيدوس كنتو كو عربي هذا اللي بيحدش علاقاتي الله كوقايد كل يشوف بقرة النيف وجيل وتكك وراده بحارة قوس إسلامتا الرضا نربو كنا معي يقولي كسوة بحيلا رجل انت ميلها تشوغان مرفع عن حيلة ما هيسو نافك عليك يلا سوق قبتي بقالنا الله وهذا ترى الله وسوق هذا ليه نواقع سالة ما صوب بحي كان يقولي هاي كسوة بحين نافك اللي دايرته كوس بحونا هذا قاونا بكلا صوب بحلا هذا نف كده الله وسوق قدر هذا ضربتين لك كاس بحونا ده كاسي وحوله بديه قف كان لكن فقير القلب واحد قاعد شوف مكعب سنة أنت صحالة وهاي أنت وحوله ليه هاي قاعد شوف مكعب سنة نك لما تكون أطول سوق كنت قوته قاعد الله سوحين مجال شوف نكره تسوي بارو جوكا لعل لما تكون أطول تكي وكنت قوته شلي مقرين وحالي معاشين وصاك مقرعان العقد أسكون بخيرية حالي مجالده وجوه البرقية اللوج مسيحنا مالك بدل وعيارة كواجوي كإرادان وقع نكتين الكاس بريء برقدي بركي تاي بوقات الله سوحي نكا ولي نوال باقوه عاود غيرك وابطل وحسب حوله وحاسو كلام حوله نين حوله بدن ويلميسي بيلك وديدان waxaan safareedka la yiraahdo ayuu laga yaqaan wajibada laga shaqeeyo sheekay garban galay islaamtii carabtii musabareed ka dhigisna uu shaqaystaa lacag badan baa soo gashay islaamtii baa ka soo dacwooday maxay kaga dacwoonaysaa biili ma siiya maaha inta biilku markuu iga soo yardaaho boqolkeed ingiriisku joogaayo oo carruurta biilkooda inay sii deymiyo ma ogola waa silmiisi weeyo boqolkeed inuu sii deymiyo usbuuca daba lacagtu markay soo dhacday loo soo celiyey ugaga baqaynaya waxaas maxoo lahaa waxaa ay miya badnaa waxaa ka mid ah dhowr dhacdoo kale hola baan joogi jiray lacag galdab laylada isticmaali jiray intaan yuuradu soo bixin nin waxaa jiray magaalada nala joogo oo shaqaysta laakiin markuu masaajka aan joogniyo yimaado mashiinada otomaatika ee kafeega iyo qaxwada laga shubtaa jiray 50 senti baa lagu ridaa maalin kasta uu nashaxaada wariyo qaxway shubku ku dhigo waagda waa baranay de markuu soo istaago kala kala baa dhacnaa waa u shubnaa annagu waxaa isleenahay duruufo qoys iyo waxyaabo badan baa ku xeerana ninka waxa waa ka dhab lacagtii markay yuuradu soo baxday baa la yidhi dhammaan dadka lacagta galdirka haysta waa inay bedelaan
isna lacago badan baa meelo u aasnaa maalinkii dambe isagoo kurbaysan oo lacag 10 kun oo dira wada way keenay 10 kun oo dir waa $4,000 waa wuxuu lacagtan baa rabaa Soomaalida in adiga waasitayso la isoo bedelo waxaan ku raadin maxaa dhacay anigu 10 kala soo bedeshay nin dahabshiil u joogay waxaan hebel baan la hadliyay orad u geeyo ku soo bedelay 10 kala u geeyay adiga waxay yaabay waxaan ku hadlay hebel kale waxawaalada dalsan joogan kula hadliyay u geey isna 10 kala u geeyay waxaan ina sharaftaadu dhowrsan tahay oo dad u baahanin wadan cidna wax weydiisanin naftaada reerkaaga waxaad aakhiradaada aad dhowrsan tahay maalku sharaftaa saasuu sharaf ku leeyahay laakiin maal aad ka tuugsanayso ninna xaaraan iyo waxaa soo ururiyey oo maalinkii dabaniil maaliyiin yimid wuxuu walaalow lacag 35 ilaa 40 kun oo dollar aan haystaa laakiin wax bay ilaahay ugu aadin kara kuma jiro xaraam ma ka soo ururiyay lacag deeb aan ku xajiyay ninkii wuxuu yidhi hada lacagta ka xaji weydi markaa ku deebiye taa xaaraanta adiga siin Soomaaliya xageed kii waxay siinayso dad ku xaji weydi baan arrinta ay u leeyso Soomaaliya ma laga ku dhacay aroodayaal wayeen soo gaaray oo markii sadaqa caana baadiyaha la aruurinayo xoolo dhaqatada xirsiga isaga waxba ku darin oo la yiraahdo xoolihiisu xaraam bay ka soo wada jeedaan ka xaso xoolo ma nabi wuxuu leeyahay warda bima qasama Allah lak wixii ilaahay ku siiyay ku qadaray risqaaga dhigay ku qanaco isku filaysiyo isku asturo isku sharaf aakhirada idinkaga ta ku dhaqan naas ninka dadka ugu xoolo badan adaan noqono kan uu shaxaatamaya inama shahaadin waxa la wallahi ninkeeda waa ladayay in lagu tuhumana waa sad xoolaha kamid xoolaha haysata waxa ka qiimo badan marka qaarkood in xoolo loo raadinayo waxba hayno meelaha qalaabanayso oo tuugsanayso Allah ka iska siiyay karaamada asturaantu hatta hada waxay inta wax ka sii qaadato oo muqaddarin oo nin waxa istaa lagu hay sababtee calooshaada banaanka loo dhigo xisaabtaada dadka loo wada sheego waa la istiruuriyaa waa la asturaada nin waxa istaa lagu haysto wada laga sheegay hada maanta qoraxda fariisto ka kicii waayay waxaa la dhihi Allah wuxuu leeyahay adaga maanta qoraxda ka tusto waxba la yidhi waxyama la iga filimaayo waxa la aana la iga yeeri maayo waxa ma haystaan baa wixii la soo go'ta qaaran la iga yeeri maayo qaaranki waxa rabaan bixiyaan wax badan buu haystaa inuu wax bixiyo la dhihi saasa ku rabay ilaahu leeytuhu marday saas tahay ilaahu leeytuhu tuhmadu waa sad aadaabtii oo soonaanto qina nafsina tuhmadaas ay keenta hal waqti waxa laga sheego hal ila hebel hal waladeeyay qaaranka loo badiyo qaaranka marka la qaybsanayo ma in hebel hal loo badiyo hal lagu yiraahdo intii lagu dheelaha may hebel way ka cadahay oo laga yaabo aduu inaad door bidayso qaaranka laga leexiyo waxa kaaga fiican hebel qaaranka loo badiyo ninka waladeeyay ada wax badan isaasa ku fiican كورة شربان ولكن الغنى غنى النفس واحد تكون أغنى الناس قفنا هو في عندك كان إلى النخب وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا درسك على إحسان السماء قف مؤمن في عمر النخب وهو درسك أكو قايلين قشنا أكو توري لبن لبك على كيرالي لبك وضعنا أصلي هذا هو حتى لكرتان إلى نوع سلام ويلي جبريل سوي قدر دار من درسك يقول عن علينا وأنا سيري ولد درسك على حلقة لسين دونا عربيه دون درس على هذا ما تقول حل ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه يسوي الرزق شمال نعطوا حوار ويقول درس الحماية كمان نبي الله وقت ما الله على أساس سنة كتوسوا هذه يبلغ صلاة بدنته أو الصوم بدنته أو صدقة بدنته لكن درس يوم بدنته علو خير هذا الله معك أهل النار ويتاس تاس أهل النار حالي يبلغ واجبات كمويه صوني صلاقيه صلاه بدن مره
laakiin deriska ma dhibto ahlu janno way yiri taasaa jannada geli deriska dhibkiisu idinka Soomaalidu dhiba kugu badan u geysanaayay waa caruur dhagaxyaysa iyo qaylo dheer markay jaranjarada soo fulaan Soomaalidu xaafadaha jaranjarada ku aqoon seexad mayaan qawda ka yeelis gurigooda markay joogaan qayladoodu deriska darbiyada ugu dustaa Sooma dadku way hadlaan waana ismaqlaan waana hasaawaane inagu maxaa cirka ku shaqeeya dadka lama maqlay وعرفت وين كل هذه قال هذا واحسن إلى جارك تكون مؤمنا قفوا في عمل وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلم تتكال لا تشعلوا وحد نفط على لا تشعش القسم مسؤول غيريا حنا ويستري دورات إلهي السهل إن عن جلسية فني فلا يسوون ما إلى حق الله سبحانه وتعالى حق إيمانك يا خير كلمة وصوه حما تدري بدل الله سبحانه وتعالى نجح جزاكم الله خيرا. قال هذا